السلام عليكم. موضوع maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa halyigii khilaafada Cusmaaniyiinta soo maray Suldaan Maxamed Al-Faatix iyo furashadiisii magaalada Qustandiniya oo haatan loo yaqaan Istanbul. ku soo dhawaada mowduuca maanta. kahor intuusan geriyin rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu ugu bishaareeyay ummadda islaamka furashada magaalada Qustandiniya oo maanta loo yaqaan Istanbul. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu kaloo tilmaamay hogaamiyaha ciidanka furan doona magaalada Qustandiniya inay yihiin kuwo kheyr u saaxiib ah. Qustandiniya xilligaas waxay saldhig u ahayd qoladii Kiristanka ee Orthodoxiska ee horboodisay dowladdii Byzantine Empire. isku degii ugu horeeyay muslimiinta ku doonayeen furashada Qustandiniya ayaa waxay bilaabatay xilligii dowladda Umayyadeed oo ahayd khilaafadii labaad ee Islaamka. Yaasir bin Muawiya ayaa lagu tiriyaa inuu ahaa hogaankii ugu horeeyay Islaami ah isla markaana isku dayay inuu furto magaalada Qustandiniya si uu xaqiijiyo bishaarada rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ku aadanayd hogaamiyaha furan doona magaaladaas. kahor inta aysan Qustandiniya soo gelin gacanta muslimiinta 1453 miilaadiga waxaa jiray isku dayo badan ay sameeyeen qaar ka mid ah hogaamiyaashii muslimiinta xilligii Umayyadeed, Cabbaasiyiinta iyo Cusmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii ugu dambeysay ee soo marta taariikhda Islaamka. balse markaan ka eegno dhinaca juqraafiyadda waxaa aad u adag in si fudud lagu furto magaalooyinka u dhisan qaabka Qustandiniya. muslimiinta ayaa isku dayay furashada magaaladaas in ka badan 10 jeer ilaa markii ugu dambeysay ay furtaan. haddaba waa kuma geesiga qiimaha badan ee xaqiijiyay bishaaradii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. geesigaas waxaa lagu magacaabaa Maxamed bin Muraadkii labaad oo taariikhda loo yaqaan Maxamed Conqueror ama Maxamed Al-Faatix. Maxamed Al-Faatix wuxuu ka mid ahaa salaadiintii dowladdii Cusmaaniyiinta ee ku aftirsatay qowmiyadda Turkida. waa khilaafadii ugu horeysay ee ebed soo marta taariikhda Islaamka isla markaana aan ku aftirsan qowmiyadda Carabta. Maxamed Al-Faatix wuxuu ku dhashay magaalada Edirne sanadu markuu ahaa 7 Rajab 835 Hijriyada oo ku beegan 30 Maarso 1432 miilaadiga. waa suldaankii toddobaad ee soo mara dowladda Cusmaaniyiinta. waxa uu nasiib u yeeshay inuu helo tacliin aad u ballaaran oo aan ku koobnayn hal dhinac oo keliya. midaas waxaa sabab u ahaa waalidkiisii Suldaan Muraadkii labaad oo aad u dadaalay isla markaana arday uga dhigay mid ka mid ah shuyuukhdii ugu caansaneed ee xilligaas oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Al-Quraa iyo Sheekh Samsudiin. Maxamed Al-Faatix yaraantiis wuxuu aad ku dadaalay barashada diinta Islaamka qaybaheeda kala duwan iyo culuumta sayniska sida xisaabta, astronomiga oo ah cilmiga xidigaha iyo qaababka dagaalka. Maxamed Al-Faatix wuxuu ku hadli jiray luqadaha kala ah Turkishka, Beershiga, Carabiga iyo luqadda looga hadlo Giriigga. Maxamed Al-Faatix wuxuu ugu dambeyn nasiib u yeeshay inuu qabto xukunka dowladdii Cusmaaniyiinta wuxuuna xukunka ama talada dowladda Cusmaaniyiinta kala wareegay aabihii Suldaan Muraadkii labaad. waxa uuna xilka qabtay isagoo da'diisa aan kor u dhaafin 23 sano oo keliya. markii Maxamed Al-Faatix xilka qabtayna dowladda Cusmaaniyiinta ayaa ka talin jirtay qaar ka mid ah Anatolia oo ka tirsan dalka Turkiga, halka Qustandiniya ee dhulka ay ka taliso dowladdii Kiristanka ee Byzantiniyiinta. tani markuu qabtay khilaafada Cusmaaniyiinta, Suldaan Maxamed Al-Faatix ayaa tallaabada koowaad uu qaaday ka dhigay furashada magaalada Qustandiniya. xitaa waxaa la sheegaa in shuyuukhdii soo barbaarisay suldaanka ee kala ahaa Sheekh Al-Quraani iyo Sheekh Samsudiin ay qayb weyn ka lahaayeen ku dhiirashada Suldaan Maxamed Al-Faatix ee ku aadanayd furashada magaalada Qustandiniya. kahor inta uusan ku duulin Maxamed Al-Faatix magaalada Qustandiniya wuxuu heshiisyo la saxiixday dhammaan quwadaha dowladihii ku hareereysnaa isla markaana aan xiriir wanaagsan kala dhexayn dowladdiisa. ujeedka heshiisyadaas uu ka lahaa ayaa ahaa inaysan dagaalo ku soo abaabulin inta uu ku guda jiro furashada magaalada Qustandiniya. Suldaan Maxamed Al-Faatix ayaa dhinac walba ka diyaar garoobay, ha noqoto dhinaca ciidanka, qorshe dejinta iyo hub samaysinka. isagoo u yeertay injineer u dhashay dalka Hungary oo lagu magacaabi jiray Urban si uu ugu sameeyo madaafiic aad u xooggan uu ku doonayay inuu adeegsado burburinta dhufaysyada Byzantiniyiinta ee Rommel Castle. ugu dambeyn Maxamed Al-Faatix iyo ciidankii uu horkacayana waxay go'doomiyeen magaalada Qustandiniya muddo gaaraysa ilaa 53 maalmood. isla markaana waxa uu dagaal lagu hoobtay la galay dowladdii Kiristanka ee Byzantiniyiinta. dagaalkaas intuu socday waxaa geeriyooday boqolaal ka tirsan ciidanka Cusmaaniyiinta xilli qaar ka mid ah madaxdii ka agdhoweyd Suldaan Maxamed Al-Faatixna
ay kula taliyeen inuu dib uga laabto furashada magaaladan Qustandiniya maadaama aad u adkeyd in ciidanka Cusmaaniyiinta ay gudbaan dhufaysyada Romaali Castle ee u yaalay dowladdii Bisandiyiinta hareeraha magaaladaas. balse Maxamed al-Faatix ayaa ku adkaystay inuu sii wado jihaadka ilaa uu kaga dhawaaqayo weedhiisa caanka ahayd Istanbul gudaheeda kursi ayaan ku yeelan doonaa ama qabri. dhowr isku day ay ciidanka Cusmaaniyiinta kaga gudbi waayeen dhufaysadii Bisandiyiinta ayay hal mar ka takhaluseen. ciidanka Cusmaaniyiinta waxay gudaha u galeen magaaladii xilli Suldaan Maxamed al-Faatix markii uu ogaaday in Qustandiniya ay soo gashay gacantii muslimiinta guushina ay ayaga raacday uu sujuud la dhacay isagoo Rabbi kaga mahadceliyay guusha weyn. markii Cusmaaniyiinta sidaa u qabsadeenba Qustandiniya, Suldaan Maxamed al-Faatix wuxuu iskugu yeeray dhammaan ciidankii khilaafada waxa uuna marka koowaad ugu hambaliyey guusha weyn ee u soo hoyatay ummadda islaamka. furashada Qustandiniya ayaa ahayd mid ummadda islaamka wada sugayeen muddo aad u dheer. intaa kadibna waxa uu ugu baaqay dhammaan ciidanka dowladda inay ka fogaadaan waxyeelaynta carruurta, dumarka iyo dadka da'da ah. sidoo kale waxa uu uga digay inay iska ilaaliyaan wax walba oo ka hor imaanaya diinta islaamka ama sharafteeda waxyeelaynaya. intaa kadib wuxuu u jeestay dadkii deganaa magaalada oo iskugu jiray madaxdii dowladdii Bisandiyiinta iyo baadariyadii ayaa isku aruuriyey kaniisadii lagu magacaabo Aya Sofiya iyagoo oohin af ka furtay kana baqaya waxa uu Suldaan Maxamed al-Faatix iyo ciidankiisa ku samayn doonaan. kadib markii uu Suldaan Maxamed al-Faatix arkay laablakaca dadka iyo cabsidooda wuxuu ugu baaqay dhammaantood inay isdejiyaan isla markaana u fasaxay in dalkooda nabad iyo xorriyad kula noolaadaan. sidoo kale wuxuu u fasaxay dadyoogii deganaa Qustandiniya inay magaalada kula noolaan karaan shacaa'irta diintooda isla markaana ay ka mid yihiin mujtamaca islaamka ee ku nool magaalada. Suldaan Maxamed al-Faatix wuxuu kaloo amar ku bixiyey in kaniisadda Aya Sofiya loo bedelo masjid weyn. sidoo kale magaalada magaceedana wuxuu u bedelay Islaamabole oo loola jeedo guriga islaamka oo dib dambe loo bedelay Istanbul oo magaca maanta loo yaqaano. furashada magaalada Qustandiniya, Suldaan Maxamed al-Faatix wuxuu ku kasbaday naaneysta ah furte ama al-Faatix. guulaha uu gaaray Suldaan Maxamed al-Faatix kaliya kuma aysan koobnayn furashada Istanbul, wuxuu kaloo guulo fara badan ka gaaray ama u furtay dhulal badan oo ka mid ah qaaradda Yurub sida Giriiga, Albaniya, Serbiya iyo dowladaha la isku yiraahdo Balkan. furashada Qustandiniya waxay albaabada Yurub u furtay dowladdii Cusmaaniyiinta oo waqtiyadii dambe la soo wareegtay dhulal badan oo ka tirsan bariga Yurub. Suldaan Maxamed al-Faatix ayaa sidoo kale isku dayay inuu furto magaalada Roma ilaa ciidanka Cusmaaniyiinta ay gaaraan magaalada Otranta ee dalka Italy. balse inta aysan dhammaystirin furashada Roma ayaa waxaa geerida alle ku timid Allah u naxariistay Suldaan Maxamed al-Faatix oo ka mid ahaa geesiyaashii xaqooda aan lagu xusin taariikhda. geerida ku timid Suldaan Maxamed al-Faatixna waxaa aad ugu farxay dhammaan kaatooliga oo u baqayay kaniisadooda oo xilligaas ku dhowaatay inay burburto. boobkii ugu sareeyay kaatooligana wuxuu ku soo rogay dhammaan kaniisadaha raacsan Roma inay dukadaan salaad mahadnaq ah maadaama uu geeriyooday Suldaan Maxamed al-Faatix oo ahaa mid quluubtooda ku shiday holac. shakhsiga aan ka hadlaya oo guulaha isdabajooga gaaray waa shakhsi aan cimrigiisa kor u dhaafin 25 sano. isagoo 22 jir ayuu wax ku guulaystay inuu furto magaalada Qustandiniya taasoo ay muslimiinta sugayeen furshadeeda in ka badan 800 sano. waa magaalo ay furan karin waayeen madaxdii isaga ka horeysay laga bilaabo xilligii Yaasid bin Umayyi ilaa laga soo gaaray xilligii 1453 miilaadiga. maantana imise anaga naga mid ah ayaan la socon taariikhda Suldaan Maxamed al-Faatix oo ka mid ahaa salaadiintii ugu qiimaha badneed soo maray taariikhda dowladda Cusmaaniyiinta bal taariikhda islaamka oo idil. ilaahay ha u naxariisto jannadii firdowsa ka waraabiyo. Suldaan Maxamed al-Faatix ayaa ahaa tusaale nool oo mudan yihiin dhalintaas muslimiinta inay ku daydaan. waxaan intaas ku soo koobaya mowduuceennii aan ka hadlaynay Suldaan Maxamed al-Faatix iyo furashadii magaalada Qustandiniya. assalaamu calaykum